Nice. Nice. Camera. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والصحافة كانوا كساب سيحي شقاقات كسعطاء وفرق البيت خاصة مقالة بيضاء إلا حرير تدور الشطا مركورة إنا لله وإنا إليه راجعون waxaan u tacsiyeynaynaa dadkii ku dhintay shaqaaqooyinkii ka dhacay magaalada Baydhabo labadii maalmood ee la soo dhaafay oo ay ku naf waayeen dad badan oo uu ka mid yahay xildhibaan Cabdishakuur Yacquub oo ahaa gudoomiyaha guddiga amniga ee golaha wakiilada Koonfur Galbeed waxaana sidoo kale alla uga baryaynaa inuu caafimaad degdeg ah siiyo intii ku dhaawacantay intii hantidooda ku weydayna bedel khayr qaba ayaan ilaah uga rajaynaynaa sida uu qabo dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya muwaadin kasta wuxuu xaq u leeyahay in la dooran karo waxna dooran karo Mukhtaar Roobowna waa muwaadin Soomaaliyeed oo buuxiyay shuruudaha loogu baahan yahay musharaxnimadiisa sida ay cadeeyeen guddiga doorashooyinka Koonfur Galbeed oo guddoonsiiyay shahaado cadeynaysa inuu u tartami karo doorashada Koonfur Galbeed dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qofna lama xiri karo xarig aan sharciga waafaqsanayn awoodda dawladda marna looma isticmaali karo meel ka dhac dhanka ah karaamada iyo xuquuqda aadanaha waxaa nasiib darro ah in dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed uu ka dhasho habashadii Mukhtaar Roobow oo loo soo xiray si baalmarsan sharciga maadaama aan amar maxkamadeed lagu soo qaban sida uu qabo dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya heer kasta oo xukuumadeed waa inay haysataa kalsoonida iyo taageerada dadweynaha sidaas daraaddeed waxaa mudan in la xuso in shacabka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ay ka biyo diidsan yihiin faragelinta xukuumadda ayna u baahan yihiin inay u madax banaanaadaan aayo ka talintooda arrimahooda gudaha iyo inay doortaan cidda ay rabaan waxaa sidoo kale xusid mudan in aan ka dignay arrimaha maanta taagan oo aan sii saadalinay natiijada ka dhalan karta haddii rabitaanka shacabka Koonfur Galbeed la siin waayo tixgelinta ay mudan yihiin sidaas daraaddeed ugu dambayntii waxaan ku baaqayaa in shacabka reer Koonfur Galbeed ay isdejiyaan nabadana adkeeyaan sharcigana dhowraan in guddiga doorashada Koonfur Galbeed ay dib u dhigaan doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed inta laga helayo jawi xasiloon oo ku habboon qabashada doorasho xor iyo xalaal ah
in kusimaha madaxweynaha koonfur galbeed uu ka shaqeeyo dejinta iyo qancinta shacabka iyo dib u soo celinta kala dambaynta in odayaasha dhaqanka ay muujiyaan kaalinta dhaqan ee ay ku leeyihiin nabadda iyo wadajirka guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka koonfur galbeed in musharaxa xiran xorriyadiisa dib loogu soo celiyo sida uu ugu dhaqsiyaha badan loona ogolaado in dib uu ugu noqdo deegaankii laga soo xiray si uu uga mid noqdo murashaxiinta u tartamaya qabashada xilka madaxweynaha koonfur galbeed sidaasi oo kale waxaan xukuumadda ugu baaqaya xildhibaanada xaq waxay u leeyihiin dhaqdhaqaaqooda xor inuu noqdo baryahan dambe waxaa bilaabatay in xildhibaanada loo diido deegaanka aniga aan deganahay inay u soo gudbaan waxaan leenahay arrinkaasi arrin wanaagsan ma aha baarlamaanka xor ayuu ka yahay golaha fulinta wuu ka madax bannaan yahay waxaan leenahay xukuumadda inay ilaalisaa sharciga waddanka u yaalla dastuurka waa inay ilaalisaa loo ogolaada xildhibaanada xor inay u noqdaan dhaqdhaqaaqooda هذا وبالله التوفيق هذا المسنتين way gudoomiye waa telefishinka Universal Abdicasiis Okey halkan ay soo dirtay baarlamaankii waa uu xiray yahay khilaaf ay waddanka ka jira maxaa xal ah oo aad sameyn lahayd oo hadda shacabku u sheegaysaa horta xal mucjiza ma aha marka ay isu furan yihiin xildhibaanada oo sida horta aad la socotaanba qodobka 92 ee dastuurka ku meel gaarka ah wuxuu u ogolaanayaa 92 xildhibaan oo golaha shacabka ka mid ah inay mooshin keeni karaan mooshinka inuu saxan yahay inuu qaldan yahay iyo in mooshinkaasi laga hadlo waqti uu u baahan yahay marka sidaa daraadeed annaga waxaan rabnaa xaqay u leeyihiin xildhibaanada inay mooshin keeni karaan mooshinkana wuxuu ka mid yahay shaqada baarlamaanka uu ka mid yahay waxaan u baahannahay marka haddii la helo annaga ka baarlamaan ahaan diyaar uma nihin instituushanada dawladda oo hadda shaqaynaya inay dhibaato gaarto ma rabno laakiin fi nafsi alwaqt ma ogolin in lagu tunto shuruucda waddanka waxaan ka hadlaynaa waxaa waaye madax banaanida baarlamaanka uu leeyahay in la ilaaliyo dastuurkan ka hadlaynaa haddii ay xiranto in la isu gudbi waayo dhaqdhaqaaqa xildhibaanada haddii ay noqdaan mid ay isu gudbi waayaan wax la xallin kara ma laha aniga halkaan waxaan ugu soo wareegay waxaa ugu muhiimsan inaan helo xildhibaanada dhaqdhaqaaq furan inay helaan waad la socotaan deegaankii hore oo aan deganaa suurtagalay noqon weysay xildhibaanada inay isoo gudbaan halkaan waxaan rabnaa marka xildhibaanada in loo ogolaado checkpointiyada lagu celinayo laga daayo si ay u noqoto wixii la xallin karana xal aan ugu raadino halkaan uma soo degin aniga buuq iyo rabsho iyo uma soo degin waxaan rabaa dastuurkaas kumeel gaarka in la ilaaliyo Soomaaliya waxaa ku wanaagsan inaan sharciga dib u soo celino ma aha fawdo inaan ku sii socono kale 30 sano ku dhawaad ayaa waxaa la baalmarsan yahay instituushanada dawladana ay la dhismi laayihiin in qof walba uu ka fikiro waxa maantaas dhacaya marka ummadda Soomaaliyeedna waxaan u sheegaynaa in annaga aanan u socon qalalaasi iyo aanan u socon wax dumin waxaan u soconnaa qof walba oo kamid ah ama dawladda ha noqdo ama mujtamaca Soomaaliyeed ha noqdee inuu u hoggaansamo sharciga waddanka uu leeyahay haddii sharci lagu dhaqmi waayo dee waddanka waxaa waaye laguma tilmaami karo dawlad waxaan rabnaa marka waxaan ku celcelinayaa qofna yuusan u arkin waxaa la wada waa sharcigaasi in mar walba loo hoggaansanaado aniga aan u hoggaansanaada ninka kale oo shacabka caadigaana u hoggaansanaada anigii madaxdii ka mid ah haddaan u hoggaansami waayo kuwa kalena ay u hoggaansami waayaan taas macnaheed dawlad maaha aad iyo aad u mahadsantihiin haddii golihii shacabka iyo xaruntii Hargeysa loo haysto xagee ku shaqaynaysa baad leedahay adoo og in mooshinka iyo Let's go.